waa maalinimo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha Agost sanada 2020 ku soo dhawaada warka shabakada Sirta Media. sida la wada ogyahay intii uu talada hay madaxweyne Farmaajo waxa uu galay dambiye aad u culus kuwaas oo suurtagal ah inuu ku muteysto maxkamad in la soo taago. madaxweyne Farmaajo dambiyada uu galay waxa kamid ah xasuuqii loo geystay dhalinyaro bananbax ka dhigaysa magaalada Baydhabo, dhac uu u geystay hantida qaranka iyadoo la ogyahay in la kala diray guddigii maaliyadda baarlamaanka oo banaanka keenay in 40 milyan oo dollar lagala baxay qasnada dawladda. gefaf waaweyn oo dastuuri ah uu galay intii uu xilka hayay. heshiisyo halis ku ah qaranka Soomaaliya ayuu si hoose kula galay dawladaha Itoobiya iyo Qatar. qodobadaas iyo kuwo kale oo badan ayaa la filayaa marka uu dhac madaxweyne Farmaajo in maxkamad loo soo taago si loogu qaado wixii tacaddi iyo gabood fale aan sharciga loo marin uu ka geystay guud ahaan geyga Soomaaliyeed. taariikhda qormaysa ee Soomaaliyeed waxaa markii ugu horeysay la filayaa in dalka gudihiisa lagu dhageysto maxkamadeen madaxweyne balse ma ahan wax ku cusub caalamka. sidaas darteed si aan loo maxkamadeynin madaxweyne Farmaajo waxa uu rabaa muddo kordhin 2 sano ah si uu u diyaariyo xeelad uu mar kale dalka ku sii hogaamiyo ama qof asaga garabkiisa uu talada kula wareego si uu ugu badbaado maxkamadeen. marnaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma ogolaanayo in la qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda balse hoggaanka waxa iska leh guud ahaan shacabka Soomaaliyeed haddii ay aqbalayaan eedeysane Farmaajo rabitaankiisa. dhanka kale maalmihii tagay waxaa magaalada Muqdisho ku sugnaa Hanad Cabdullaahi Axmed Cadow oo ah aqoonyahan uu dhalay Cabdullaahi Axmed Cadow safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka iyo musharax madaxweyne oo hore. imaanshaha Hanad ee Muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay warar badankooda la xiriira in looga yeeray in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. hase yeeshee xog gaar ah oo ay heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaysa in imaanshaha Hanad ee Muqdisho aysan la xiriirin xilka ra'iisul wasaaraha balse ay tahay in loo magacaabo safiirka Soomaaliya ee dalka Faransiiska. ila wareejo ku sugan fila Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu Hanad xilkaani u magacaabo muddo ka hor balse la sugayo dawladda Faransiiska inay soo aqbasho ka hor inta aan si rasmi loo shaacin magacaabista taasoo hadda lagu guuleystay. Hanad ayaa la sheegay in sababta uu Muqdisho u yimid ay tahay in uu qaato baasaboorka diblomaasiga Soomaaliya lana kulmo madaxweynaha ka hor inta aanu u safrin magaalada Paris. Hanad ayaa ah aqoonyahan muddo ku dhow 20 sano la soo shaqeeyay qaramada midoobay isla markaana khibrad wanaagsan leh balse ay adag tahay in xilligan loo dhiibay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo sababtana lagu sheegay in dalka Soomaaliya uu ka tagay isagoo 7 jir ah sidaas darteedna ay ku adkaan karto in uu maareeyo marxaladda kala guurka ee buuqa badan. madaxweyne Farmaajo ayaa lagu waramay inuu ixtiraam iyo abaal weyn u hayo Cabdullaahi Axmed Cadow oo xilligii Farmaajo imaanaya Mareykanka ku soo dhaway Washington kalena shaqeeyay safaaradda aadna ugu gacan siiyay markaas oo Cadow uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Mareykanka. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta uusan soo magacaabin ra'iisul wasaaraha cusub waxa uu qaadaya talaabooyin dhowr ah oo la rumaysan yahay inay hortaagan yihiin magacaabista ra'iisul wasaaraha. xilka xayuumintii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kadib xukuumadda xilgaarsiinta waxa ay qaaday dhowr talaabo oo sharci darro lagu tilmaamay kuwaas oo madaxweynaha uu doonayay inuu meel mariyo inta aanu ra'iisul wasaaraha cusub imaanin waxaana kamid ah dhismaha guddiga adeega garsoorka oo lagu biiriyay 5 xubnood oo banaanka ka imaanaya taas oo ka dhigan in madaxweyne Farmaajo uu qaado talaabo uu ku dhisayo maxkamad dastuuri ah oo xalka gaari karta haddii khilaaf uu ka dhasho doorashada soo socota. xukuumadda xilgaarsiinta waxa ay ansixisay xubnaha maamulaya hay'adda batroolka Soomaaliya taasna waxay meesha ka saaraysaa awoodii xukuumadda la soo magacaabi doonay u yeelan lahayd in dawlad goboleedyada ay gorgortan kala gasho hanaanka qaybsiga kheyraadka dalka. qodobka saddexaadna waa in baarlamaanku isku diyaarinayo in maalmaha soo socda uu go'aan ka gaaro labada nooc ee doorasho ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu soo bandhigay kan la qaadanayo. go'aanka baarlamaanka haddii uu ka soo hormaro magacaabista ra'iisul wasaaraha waxa ay meesha ka saaraysaa in xukuumadda cusub ay aragti ku yeelato doorashooyinka dalka. Professor Xasan Sheekh Cali waxa uu qabaa in dib u dhigista soo magacaabida ra'iisul wasaaraha cusub ee madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay ay salka ku hayso ka gungaaridda dhaqangalka qodobadani isaga oo ka digtoon inay isku qabtaan shakhsiga uu soo magacaabi doono. Professor Xasan ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan ra'iisul wasaare raadinayn ee isaga uu israadinayo. madaxweyne Farmaajo culayska ugu badan waxa uu kala kulmaya ra'iisul wasaaraha uu raadinayo ma jiree isaga ayaa israadinaya arrintaasina waa ay ku adkaan doontaa sababtoo ah 3 sano iyo barkii la soo dhaafay Khayre ma ahayn ninka fashilmay isaga ayaa fashilmay ayuu yiri Professor Xasan xilli uu la hadlay mid kamid ah TV-yada Soomaaliyeed. Professor Xasan Sheekh Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri laba ay mid noqonaysa in Farmaajo isaga isu soo helo oo markii uu isu soo helo oo waxba uu qaban waayo ilaa waxba ma qaban karee iyo in uu soo helo ra'iisul wasaare karti leh oo qaban kara howlaha horyaala taasna waa meesha uu ka cabsi qabo oo waxa uu ku dambeyn doonaa in 7 daqiiqo lagu eriyo. ugu dambeyntii Professor Xasan ayaa waxa uu qabaa in madaxweyne Farmaajo ay haysato 2 daran mid dooro oo haddii isagu iskeeno iskuma filno haddii ra'iisul wasaare karti leh uu keenana uu isaga burin doono. sababtan waxa uu ku sheegay in 3 sano iyo barkii la soo dhaafay guulihii dadka Soomaaliyeed loo sheegi jiray ay ahaayeen kuwo been abuura. dhanka kale madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo haatan ku sugan dalka Turkiga ayaa munaasabad soo dhaweynaa loo sameeyay waxa uu uga hadlay qabsoomida wajiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb. Qoorqoor ayaa shaaciyay in shirku uu ku dhici doono waqtigii loo asteeyay oo ah 15 bishan Agost
sidoo kale waxa uu ka digay in la fashiliyo shirkaasi isagoo xusay in loo baahan yahay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara in uu burburo shirkaasi madaxweynaha galmudug ayaa sidoo kale shacabka uga mahad celiyey doorka ay ku leeyihiin shirkaasi iyo weliba siday ugu diyaar garoobayaan shirka waqtigii lagu ballamay ayuu ku dhacayaa ilaa haatan ma hayno waxyaabo keeni kara inuu dib ugu dhaco xilligii qorshaha uu yahay waxaana bogaadinayaa kaalinta dadka galmudug gaar ahaan shacabka magaalada dhuusamareeb oo martigeliyey madaxda iyo xubnaha la socday ayuu yidhi madaxweyne axmed cabdikaari qorqoor shirka dhuusamareeb ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ka duwan shirarkii hore maadaama la riday mudane xasan cali khayre oo door ku lahaa shirarkaasi sidoo kale shirka ayaa ku soo aadaya xilli uu sii dhammaanaya muddaxileedka dowladda isla markaana lagu jiro marxalad adag oo kala guura dhanka kale siihayaha xilka ra'iisul wasaaraha mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ka dhawaajiyey in dowladda nabad iyo nolol ee madaxweyne farmaajo ee inta ka harsa muddaxileedkeeda ay juhdi iyo xoog badan gelin doonto sidii maqaamka magaalada muqdisho loo hirgelin lahaa loona dhammaystiri lahaa mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa sheegay in guul weyn ay tahay in go'aankii ansixinta baarlamaanka ay 13 xubnood uu ku yeelanayo aqalka sare uu markii horeba ku yimid codsi madaxweyne haddana ay ka shaqaynayaan sidii madaxweynaha u saxiixi lahaa uu sharcigaasi hor yaala si uu u saxiixo 13 xubnood ee gobolka banaadir ka helay aqalka sare dhammaystirkiisa waa ay hirgelaysaa waana fulaysaa madaxweynahana waa uu meel marin doonaa inta dowladda nabad iyo nolol muddaxileedkeeda ka hartay waa inaynu si wada jir ah ugu wada shaqaynaa saaxiibkay walaalkii mahad salaadna si wada jir ah ayaan ugu wada shaqaynaynaa hirgelinta maqaamka caasimadda muqdisho barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen ayuu yidhi mahdi maxamed guuleed asagoo ka hadlaya munaasabad maamulka gobolka banaadir uu kula wareegay waxbarashada gobolka banaadir oo horey u maamulaysa wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya kooxaha mucaaradka ee xildhibaanada ka tirsan iyo kuwa xisbiyada siyaasadeed ayaa hore uga dhaliilay madaxweyne farmaajo in xeerkii baarlamaanka meel mariyey ee 13 xubnood gobolka banaadir uu ugu yeelanayo aqalka sare in mar hore loo gudbiyo si uu u saxiixo balse uu ka gaabiyey inuu qalinka ku duugo dhanka kale xog ay helaysa shabakadda sirta media ayaa sheegaysa in xukuumadda somalilan ee muuse biixi ay fal argagax leh oo ka baxsan la dhaqanka maxaabiista kula kacday milkiilaha astaan tv cabdimanan oo muddooyinkii dambe u xirnaa xukuumadda muuse biixi cabdimanan yuusuf maxamed oo ah milkiilaha guud ee shirkadda astaan tv ayaa bartamihii bishii hore ee juulaay lagu xiray magaalada hargeysa iyadoo aysan jirin weli dacwad rasmi ah oo lagu soo oogay sida ay xogta ku helaysa shabakadda sirta media ciidamada booliska ee ka amar qaadanaya xubno sare oo ka tirsan xukuumadda ayaa cabdimanan u geystay jirdil aad u daran taas oo ah xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha iyo habka la dhaqanka maxaabiista xariga cabdimanan ayaa daba socda cadaadisyo ay xukuumadda ku saaraysa in shakhsiyaad ay wadato uu saami buuran ka siiyo shirkadda astaan cable sida uu dhawaan u sheegay guddoomiyaha boorka astaan cable axmed maxamed jaamac oo sidoo kalena ah wakiilka inta badan saamiilayda somalilan ee shirkadda astaan cable jirdilka loo geystay cabdimanan ayaa imaanaya xilli uu weli ka madax adeegaya diidmada inuu aqbalo dalabyada mas-uuliyiintaasi oo u muuqda kuwa doorbiday tallaabadaasi inay cadaadisku xooggan u saaraan sida ay ilo xog ogaala u xaqiijiyeen shabakadda sirta media mana ahan markii ugu horreysay xukuumadda somalilan ee uu hogaamiyey muuse biixi ay qaab sharci darro ah ula dhaqanta shakhsiyaadka u xiran taas oo walaac badan ay ka muujiyeen hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka dowladda soomaaliya ayaanan weli ka hadlin xadgudubka iyo xarigga ay somalilan u geysatay cabdimanan intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa haatan ina soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda sirta media adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta media